and slept all night on top of it. Aliko Dangote oo loo aqoonsan yahay inuu yahay maalqabeenka ugu taajirsan qaaradda Afrika ayaa meel fagaara waxa uu ka sheegay in mar noloshiisa kamida uu lacag badan kala soo baxay bangi ay u taalay kadibna uu la tagay gurigiisa isagoo markaasi uga jeeday oo kaliya inuu sheeda ka daawado isla markaasina uu xaqiiqsado inuu lacagtaasi leeyahay. When you first start business, your target is to make your first million. Okay, fine, I did that. Markaad ganacsiga bilowdo bartilmaameedkaaga ugu horeeya waxa uu noqonayaa inaad gaadho oo aad hesho $1 milyan. Waa hagaag taasina waan sameeyay. Balse kadib tirada lacagtu marka ay kor dhaafto $1 milyan micna kuma sameynayso ayaa uu yiri Aliko Dangote. $5 million. The way it is that when you first start waa uu sii watay hadalkiisa waxaana uu yiri mar kale maanta waxaan haystaa in ka badan $12 bilyan balse waa tiro warqada ku qoran oo macna ma sameynayso. I have much more than 13 billion, and I said, okay, fine, all these numbers are just written numbers. Intii ay sahlanaayeen shuruucda bangiyadu ee aanay xayiraada badani jirin ayaan maalin tagay bangi waxaanan qoray check aan kula baxay $10 milyan. Waxaan ku guray khaanada dambe ee baabuurkayga kadibna waxaan la tagay gurigayga si aan u daawado markii aan furay ee aan arkay $10 milyan markaas ayaan xaqiiqsaday inaan maalqabeen ahay. maalintii xigtayna waxaan dib ugu celiyay bangigii ayaa uu yiri Mr. Aliko. And one day I went to a bank. At that time there were no restrictions of this, and I wrote a check and cash $10 million, and I took it home for yourself. For myself, yes. You cashed $10 million from the bank. Yes, and took it. I put it in the boot of my vehicle. And I went home, and I opened it, and I look at $10 million. I said, okay, fine. Now I believe I have money. I know. You made love to your money. It was in the boot of my car. But I bought it, and I went there by myself. I drove myself to the bank. I cashed the money. Isla goobta ayaa lagu weydiiyay bal jeebkiisa maanta xadiga lacageed ee ku jira. Waxaana uu sheegay inaanu maanta wax lacaga jeebka ku sidanin gabi ahaanba. Today? Yeah. How much money have in your pocket? You'll be very, very surprised. I don't even have, not even $1. Nothing. You have no money on you? Nothing. Okay. Nothing. I have nothing. That's money for you guys. When you have money, you don't carry money. Aliko Dangote oo ah 61 jir ku dhashay magaalada Kanu ee wadankaasi Nigeria ayaa hadalkani waxa uu ka sheegay isagoo ku sugan shir ka dhacay magaalada Abidjan ee wadanka Ivory Coast. Ayaa hantidiisa lagu qiyaasay in ka badan $12 bilyan. Waxaana uu leeyahay warshado badan oo soo saara sibirka iyo daqiiqda oo ku yaala in ka badan 14 wadan oo qaaradda Afrika. hadalkani ka soo baxay maalqabeenka oo dad badan ka qosliyay ayaa waxay u muuqataa xilligaasi in shaki uu ka galay lahaanshaha lacagta bilaayiinta dollara ee bangiyada ceegaagta oo gacantiisaba aan ku jirin marka laga tago tirooyin warqada ku qoran oo muujinaya xaddiga lacagta u taala bangiyada. taasi oo keentay inuu tallaabadani qaado sidoo uu hubsado lahaanshaha maalkiisa. The heaters